allahayow cadiimow casiisow jabbaarow rabbigii candhuuftiiyo cadyar naga abuurow kaan caabudnaayeen ciidda ugu sujuudnow caam ahaan adduunkii cudur baa haleelo cududda iyo xooggii hub caddaanu haysto laysaga cabsiiyiyo culimmadii aqoontiiyo colkii saynisyahankii cilmi baadhayaashii xag kastaba u cararo weli way cakirantee cabsi badanihiiyow cadaabiye jannaalow cirdaroorshihiiyow carradoo mid dhimatee dibisoo cagaarshow carruur koryihiiyow risar cayimihiiyow cidduu rabo u buuxshow calaacalaha taagnee caafimaad sareecana nagu caymi eebow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيرت شرف تري ملك سادوية كجوتين هذه أدواني نسنا ولكن علي جامعة مرة نواديو كل أنتي وناكسن مدة صومالية ملك سادوية كجوتين وحنا نيرة شيني عافمات برواقة يا بش إن شاء الله كانوا سن الله عافيو كي عافمات قبل الله عافمات كوسياديو تذكرني أنت دبنا الله دبتها كسارة ودن كيننا الله ينبر واقعي إن شاء الله بإذن الله الكريم. ummadda Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ka jirtan mar labaad iyo mar saddexaad guul baan idin rajeynayaa insha Allah. maanta waxaan rabaa inaan xogaa wacyigelina ayaan rabaa inaan soo mariyo maadaama uu janankeena uu ka shaqeeyo mar walba waxyaabaha bulshada danta u ah insha Allah. markaa maanta bal waxaan xogaa wacyigelina ka fidin doonaa insha Allah waxyaabahan adduunyada ka jira xanuunadan iyo mushkiladahan macnaha adduunka naafeeyay waa wax Ilaahay soo diray oo cidina kama wardi karto. alxamdulillah inaga Ilaahay baa caafimaad iyo barwaaqo noogu deeqay. Ilaahay baan uga mahad celinaynaa alxamdulillahi rabbil caalamiin. inteena ku dhacayna Allah ka badbaadiyo insha Allah. bal marka ummadda Soomaaliyeed waa fariin ku socota dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay adduunyada ka joogaan, gaar ahaan meelaha uu cudurkan caabuqu uu ku badan yahay, gaar ahaan wadamadan qaboobaha ah. marka ummadda Soomaaliyeed inagu dad islaam ayaan nahay, waxaan aaminsanahay qadarta Ilaahay. wixii Ilaahay inoo qadaray waan maraynaa, haddana Ilaahay muu odhan istayaca. marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku goorinayaa ama talo soo jeedinayaa insha Allah inay ka taxadiraan maadaama xilligan waqtigan xaadirka la joogo aad adduunka ugu soo batay, waliba dhulkan qaboobahu ilaa xad buu batay. marka waxa qurux badan wadan kasta joog inaad wadan kasta u hoggaansato sharcigiisa loo sameeyay imanaha systemka dawladda wadanka aad joogtaa u sameysay. ummadda Soomaaliyeed inagu waxaan nahay dad wanaag jecel, dad maxaan ku dhahday alxamdulillah Ilaahay nimcadu siiyay. marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ku goorinayaa insha Allah inay ka fogaadaan waxyaabihii ama suuro gelinaya inuu baalkan uu faafo ama dhexdooda uu ku faafo, maadaama inagu waan nahay dad aan dalkooga joogin oo ka maqan wadan aan Ilaahayna jooga. marka mar walba waxa qurux badan inaga wax inoo wanaagsan intaan caafimaad qabno. qofkuna waxa muhiim ah inta uu caafimaad qabo ayuunbay talidiisu gacantiisa ku jirtaa. haddii uu xanuunsado waa dareemaysaa wadankaagi ma joogtid, ehelkaagi lama joogtid, wax kasta kugu dhici kara. marka ummadda Soomaaliyeed waa iga talo. ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa insha Allah biidmillahi kariim inuu qof kastaba dhinaciisa taxadir ka sameeyo. waan ogahay qadarta Ilaahay cidina ma oolin karto, laakiin haddana Ilaahay istayac kuma odhan. haddaad imika wadadaas seexato waxaad ka cabsanaysaa baabuur inuu ku jiro. sidaa ay kadaalig waa inaad waxyaabahanina aan ka fogaana insha Allah. waa inaan tallaabooyin wanaagsan qaadnaa, waa inaan is wacyigelinaa, waa inaan is dhegaysanaa, waa inuu qof walba meeshiisa uu mas-uuliyadda ka qaadaa. waayo qofna maanta hadduu xanuunsado dee waad arkaysaa xaalkiisa waa dareemaysaa iyo dhibaatada uu la kulmayo. marka waxaan ummadda Soomaaliyeed kula talinayaa anigoo waxba kaga rabin inay qof waliba meeshiisa inuu ka taxadiro, hayna iska ilaaliyaan isku taka faraha badan leh insha Allah biidmillahi kariim. waa iga talo wax maskaxda ku soo dhacday waxaan qofna ku canaadiyay maaha, waa wax wanaageennuna. walaalayo walaalkayga muslimka ay daawanayo, walaashada muslimada ay daawanaysaa, ku dadaal khayrka Ilaahay caabud, talada Ilaahay u dhiibo, laakiin naftaada ilaali. intaad ilaalin karto Ilaahay islaali buu ku yidhi. Ilaahay istayac kuma odhan. waad arkaysaa adduunyada wax ka dhacaya, boqolaal kun oo qof maalin walba u dhimanaya, intaasoo kun oo qof dhaqaatiirta ku jirta. dadkaas maxay galabsadeen? qadartii Ilaahay baa ku dhacday. ummadda Soomaaliyeed marka waxaan kula talinayaa inay ka fogaadaan waxyaabii u soo jiidaya inuu dhexdooda ku faafo ama gacmaha la inagu fiiqo. maadaama aan ummad islaam nahay waa inaan astaan noqonnaa
ku salaysan wanaag iyo sharaf iyo karaamo. Ilaahay hana ilaaliyo ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin. waxaan idin rajeynayaa guul, barwaaqo iyo caafimaad. oo walaalkin Cali Jaamac. Asalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.